السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتا بنداوديال meel kasta daafa dunida iyo caalamkaba aad ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni Hacks oo maalintii 14aad oo xiriir ka bixi doona bartaan YouTube-ka kulana ee Hacks Pro Channel. barnaamijku maanta wuxuu ka imanayaa Bidaan University holkiisii dambe tartamaha koobaad baan u yeeri doonaa ee Bidaan University fadhiya maanta Cabdi Birre soo kaco saabkana loo garan. السلام عليكم عبد البر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسدو برنامج كاكيس هل كان مقالة برعاك كرنو شاي iyo waxaad ka shaqeyso waa ku dhaweey barnaamijka Kaakis magaalada Burco karno laanta hawada waxaan doonayaa inaan la boodo walateeda way waxa xusnaatay su'aalaad baan ku weydiin doonaa shanta hadii shanta garato waxay heli doontaa dharida dhameystir afar kamid hadii aad garato shanaad garan weydina waxay heli doontaa afar dhameystir hadii xaafadaad suuqa iyo wixii xaga ka xiga tahay waxaad ka afri doontaa bismillah restaurant hadii xagan ka sixigtana kubciyo shoob laba jeer dadweynaha ku caawinaya laba jeerna lama ka tuuraya صح bismillah ku bilaabaya su'aashaada koowaad waxay koodhanaysaa shaaha hayga qubin waxay ahaayeen shaaha hayga qubin waxay ahaayeen ba saraawiil bari socotay ta shaadad bari socotay ja kaba bari socotay ha sharabaado bari socotay bismillahir rahmaanir rahiim ilaahu waanu waaga waraaba cunin ligu soo cali haatire shaaha hayga qubin waxay ahaayeen ba saraawiil bari socotay ja shaadad bari socotay ha ba saraawiil bari socotay ta shaadad bari socotay ja kaba bari socday ha sharabaado bari socday waa jaada ja kaba bari socday waa kaba bari socday jawaabta su'aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su'aashaada labaad waxay ku odhanaysaa hilibgeel buu soo cunay waxa looga jeedaa hilibgeel buu soo cunay waxa looga jeedaa ba hudeel buu soo maray ta laxoox buu soo cunay ja furin buu soo cunay ha harakoob buu soo cunay Allahumma salli ala Muhammad taatan isku day waxay noqon doontaa hilibgeel buu soo cunay hilibgeel buu soo cunay waxa looga jeedaa ba hudeel buu soo maray ta laxoox buu soo cunay ja furin buu soo cunay ha harakoob buu soo cunay waa hudeel buu soo maray hudeel buu soo maray hudeel buu soo maray jawaabta su'aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay harakoob soo cunay sacabka garaaca tartamaha labaad ee barnaamijkan daawadayaal u yeeri doonaa intaanu yeedhin qadar adeega bulshada Ababe Ethiopian Restaurant waxaad ka helaysaa cunto Ethiopian fresh ah sharaabka noocyadiisa kala duwan Ababe Ethiopian Restaurant waxa uu ku yaalaa magaalada Burco xaafadda Afgoy wixii faahfaahin intaasi dheeraadana kala xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda tartamaha labaad magaciisu waa Abuwalad soo kaco sacabkana loo garaa السلام عليكم أبو ولد كسودو برامج كاكيس halkaad magaalada Burco ka nooshay waxaad ka shaqeyso iyo hadii aad arday tahay وعليكم السلام saaxiib Jawaal anuu arday baan ahay waxaan dhigtay Shukum Xaali classka waxaan ahay 4 waxaad ka shaqeysaa waxa ka shaqeeyo waayo waxaad xusnaataa shan su'aalood baan ku weydiin doonaa shanta hadii aad shanta garato waxaad heli doontaa dharida dhameystiran salaamo fashion style afar kamid hadii aad garato oo shanaad garan weydo oo ay xaafadaadu xaggaas uu qatahay waxaad ka afri doontaa bismillah restaurant hadii xaggan ilaa la foolida tuurta maxaa cali inta taayna kubciyo shoob laba jeer dadweynaha ku caawinaya laba jeerna laba ka tuuray insha Allah bismillah oo ku bilaabay su'aashaada koobaad waxay ku qoraysaa dig buu xiran yahay waxa looga jeedaa dig buu xiran yahay waxa looga jeedaa ba shaar cad buu xiran yahay ta garamaan qoor loo xiran yahay ja midna ma xidhna ha ba iyo ta watao dig ma garamaan buu xiran garamaan qoor leh garamaan qoor loo xiran dig buu xiran yahay waxa looga jeedaa ta garamaan qoor loo xiran yahay jawaabta su'aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su'aashaada labaad waxay ku odhanaysaa YouTuberada ninka ugu xigmada badani waa YouTuberada ninka ugu xigmada badani waa ba Idrisle ta CK ja guri barwaaq ha shiina culay koox mudwalmiya su'aashadan soo day wax weeye oo ma shakilista shiina culay weeye ha oo shiina culay YouTuberada waxa ugu xigmad badan ba
idrisle ta siike ja guri barwaaqo xa shinawle jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa youtubirada kuugu xigmada badan waa xa oo shiino culaya jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su-aashaada saddexaad waxay ka odhanaysaa ciyaartooyga caashadheer loo yaqaanaa waa ba peter cruj ta cristiano ronaldo ja imbabe xa neymar laba ka mid a ayaan kaa tuuri doonaa waxa isku soo hadhay ta oo cristiano ronaldo iyo ja oo imbabe caasha dheer ciyaartooyga loo yaqaana ta oo cristiano ronaldo jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa caasha dheer ciyaartooyga loo yaqaanaa waa ta oo cristiano ronaldo go-aankaaga u dambe jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su-aashaada afraad waxay ka odhanaysaa faafi waxa ay reer burcow yaqaanaan ba dad gaadhi wada saaran ta dad safar wada baxay ja dad meel isugu yimi xa dad meel wada fadhiya faafi waxa ay reer burcow yaqaanaan ba dad gaadhi wada saaran ta dad safar wada baxay ja dad meel isugu yimi xa dad meel wada fadhiya daawadayaal waa markii koowaad aan idin baahno anigiyo abwalad su-aashaydii afraad baanu maraynaa meel xasaasiya runtii su-aasha afraad waxay idin odhanaysaa faafi waxa ay reer burcow yaqaanaan ba dad gaadhi wada saaran ta dad safar wada baxay ja dad meel isugu yimi xa dad meel wada fadhiya imise qof ayaale waa ba oo waa dad gaadhi wada saaran imise qof ayaale waa ta oo waa dad safar wada baxay imise qof ayaale waa ja oo waa dad meel isugu yimi imise qof ayaale waa xa oo waa dad meel wada fadhiya dadkii ugu badnaa ee howlka ku sugnaa adigu 800 oo qof waxay u codeeyeen ja oo dad meel isugu yimi inaad ku raacayso ku raacaysaa ja dad meel isugu yimi su-aashaada afraad baad maraysaa hal jaanisoo dadweynahabaa kaa baxay sidoo kale hal jaanisoo milabaabaa kaa baxay go-aankaaga u dambeeya ja dad meel isugu yimi jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su-aashaada shanaad waxay ku odhanaysaa baas hoosuu bixiyey waxa looga jeeda ba kubadu caan buu ka roos ta wuu hindhisay ja wuu qufaacay xa midnaba laba jeeroo dadweynaha marbaa kaa baxay laba jeeroo milaba lagaa tuuriya marbaa kaa baxay hal jaanis baa ku hadhay iyo mar dadweynaha laba ka mid a ayaan kaa tuuri doonaa waxa isku soo hadhay ta oo wuu hindhisay iyo ja oo wuu qufacaya go-aankaagu dambeeya su-aashaadiisana ja wuu qufaca jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa go-aankaaga u dambeeya baas hoosuu bixiyey waxa looga yaqaanaa ama looga jeedaa ja wuu qufaca qalad ama sax ama qalad go-aankaaga rasmiga ja wuu qufaca jawaabta su-aasha ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa ja wuu qufaca jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay aad baan kuugu hambalyeenaya salaama fashionista dhariido dhammaystiran sacabka mar kale u garaaca tartamaha saddexaad ee barnaamijkan daawadayaal u yeedhi doonaa barnaamijka waxaad ka daawanaysaan bartan youtube-ka Hackspro channel haylow daawad inaad subscribe saarto nagu soo birto video-gana like saarto share garayso aad iyo aad baad u mahadsantahay tartamaha saddexaad beer dilaacshaha soo kaco sacabkana loo garaaco السلام عليكم بارد العشاء كسودو برامج كاكسل كاد مقالة براك كانوا شيء يوحد كشغل صادي أردته عليكم السلام مستر جمال يعني أنا وصراحة كشقيا هو الكم بدان حق السلام كشقيا مركها وحنا كنت على خاطرتك إنجاز سريع وخاص كا
waayo waxaad xasuusnaataa dictor 5 su'aalood baan ku weydiin doonaa 5 haddii aad 5 garato dheerido dhammaystiran bedelaysaa salaama fashion afar ka mid haddii aad garato tashanaad garan weydo oo ay xaafadaada suuqa tahay waxaad heli doontaa afar dhammaystiran bismillaah baad ka afraysaa haddii ay xaafadaha la foolay maxamed cali tuurta aagan isku tahayna kobciyo shoob insha Allah laba jeer dadweynaha ku caawin doona laba jeerna lama ka tuuraya subhan su'aashaadu koowaad waxay ku oranaysaa laynka qabow uu raacay waxay ahayd ba uu xiimay ta wax buu xaday ja meel madow uu maray xa midnaba waxa weeye jao meel madow maray jawaabta su'aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa laynka qabow uu raacay waxa looga jeedaa ja meel madow uu maray jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su'aashaada labaad waxay ku oranaysaa nooda u saar waxa looga jeedaa ba la dagaala ta wajiga u xumaan ja u tanaasul xa midnaba su'aasha haddaan isku dayo waxa weeye ta oo ah wajiga u xumaan nooda u saar weli cid nooma u saar waayo shayga ka yaaliya kala afkiran weydo nooda u saaraysaa waaye nooda u saar waxa looga jeedaa ta wajiga u xumaan jawaabta su'aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su'aashaada saddexaad waxay ku odhanaysaa gobolka isku filaanshiyaha gaadhay waa ba gobolka sanaag ta gobolka sool ja gobolka banaadir xa gobolka saaxib gobolka isku filaanshiyaha gaadhay su'aasha haddii hoolka waxa ka muuqa dad aad u fara badan iyo gurgiisa daawadeel waa markii koowaad aan idin baahno aniga iyo beer dilacashay su'aashaydii saddexaad baanu maraynaa su'aashuna waxay doonaysaa gobolka isku filaanshiyaha gaadhay waa ba gobolka sanaag ta gobolka sool ja gobolka banaadir xa gobolka saaxil imse qof ayaa le waa ba uwa gobolka sanaag imse qof ayaa le waa ta uwa gobolka sool imse qof ayaa le waa ja uwa gobolka banaadir imise qof ayaa le waa xa uwa gobolka saaxib dadweynihii ugu badnaa uguna faraha badnaa waxay u codeeyeen ja oo ah gobolka banaadir inaad ku raacayso inaad ka hor imanayso labadabaada go-aankeeda waa marka horeba inaga u dhibinay dadweynaha ayaan ku raacna haddii ayna waalaana waa adiban iska socon waayahay jawaabta su'aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa gobolka isku filaanshiyaha gaadhay waaye ja oo gobolka banaadir jawaabta su'aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay gobolka saaxil shacabka u garaaca tartamihii afraad ee barnaamijkan daawadayaal u yeedhi doonaa shamaan baa laydhaaha soo kaco shacabkana loo garaaco inta aanan barnaamijka kuu furin qadar adeega bulshada abaabe ethiopian restaurant waxaad ka helaysaa cunto Ethiopian fresh ah sharaabka noocyadiisa kala duwan abaabe Ethiopian restaurant waxa uu ku yaalaa magaalada Burco xaafadda Afgoy wixii faahfaahin intaasi dheeraadana kala xidhiidh ciwaanada shaashada kaaga muuqda waayahay ku soo dhaw barnaamijka kisalkaad magaalada Burco ka nooshay waxaad ka shaqeyso iyo hadii aad ardayta waxaan ka noolay xaafadda Jiidali waxaan ka shaqeeyaa waxaanay macallintii jira waaye waxaad xasuunataa 5 su'aalood baan ku weydiin doonaa 5 haddii aad 5 garato waxaad heli doontaa dheerido dhammaystiran salaama fashion afar ka mid haddii aad garato tashanaad garan weyd oo ay xaafadaadu suuqa ku dhowdahay waxaad ka afri doontaa bismillah restaurant hadday xaafadaha xaggan ee tuurta la fooleyda maxamed cali ay tahayna waxaad tagi doontaa kobciyo shop laba jeer dadweynaha ku caawin doona laba jeerna min laban ka tuur doona bismillah waan ku bilaabaya su'aashaada koowaad waxay ku odhanaysaa meelkatuur waxa uu ahaa ba gaadhigii markatuuga la odhan jiray ta qof dadka layn jiray ja buur laga soo dhici jiray xa midnaba bismillaahi raxmaani raxiim su'aasha haddaan isku dayo waxaa loo yaqaanay gaadhigii la odhan jiray markatuuga meelkatuur waxa uu ahaa ba oo gaadhigii markatuuga jawaabta su'aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su'aashaada labaad waxay ku odhanaysaa joornaal buu sidaa waxa looga jeedaa ba waraaquu sitaa ta wuu gaajoonaya ja isagaa gaastariya xa wax male su'aasha haddaan isku dayo baashi aad ka kululayd gaaju sida weli ma qaada adu joornaal dhowr jeer waaya tii rabadaan toogan sidee
tii rabadaantaba waa sidaa wallaahi war ta oo ah wuu gaajoonaya jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay dhowr jeer baad qaado sidaa daraaddeed waad ku guulaysantahay waayo su-aashaada saddexaad waxay ku odhanaysaa laxoox kibirtay waxaa loo yaqaanaa laxoox kibirtay waxaa loo yaqaanaa ba biisaha ta hambeegarka ja roodhida xa midnaba su-aasha haddaan isku dayo dadweynaha gudhib daawadayaal waa markii koobaadaan idin baahno aniga iyo shamaam su-aasheedii saddexaad baanu maraynaa su-aashuna waxay doonaysaa laxoox kibirtay waxaa loo yaqaanaa ba biisaha ta hambeegarka ta biisaha ja roodhida xa midnaba imise qof ayaa le waa ba oo waa biisaha imise qof ayaa le waa ta oo waa hambeegarka imise qof ayaa le waa ja oo waa roodhida imise qof ayaa le waa xa oo waa midnaba waaye dadkii ugu badnaa waxay u codeeyeen inay tahay ba oo hambeegarka haddaad ku raacayso inaad ka hor imanayso go-aankana adigaas kale jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa laxoox kibirtay waxaa loo yaqaanaa ba hambeegarka jawaabta su-aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay waxaa loo yaqaanaa biisaha sacabka garaacay tartamihii u dambeeyey ee barnaamijkan daawadayaal u yeedhi doonaa barnaamijka waxaad kala socoteen barteena youtube-ka ee Haki Sports Channel haylowin daawad inaad subscribe saarto videogana like saarto aad iyo aad baad u mahadsan tahay tartamaha u dambeeya magaciisu waa Sabada soo kaco sacabkana loo garaaco ku soo dhawow barnaamijka Haki halkaan magaalada Burco kaga nooshahay waxaad ka shaqeyso iyo haddii aad ardayda waan ku dhawahay barnaamijka waxaan ka shaqeeyaa arigan qala'aan arigaad qasha waxaad xusnaataa 5 su'aalood baan ku weydiin doonaa 5 haddii aad 5 garato waxaad doontaa dharido dhammaystiran salaam faashinista afar ka mid haddii aad garato shanaad garan weydo horta xaafadada waxa gay masuuqa mise waa aagan suuqa haddii xaafadada suuqa tahay waxaad ka furi doontaa bismillah restaurant laba jeer dadweynaha ku caawin doonaan laba jeerna mid laba ka turay bismillah su'aashaada koowaad waan ku bilaabay riyihii ugu horeeyay ee fooq fuulaa waxa ay joogay su-aashaada koobaad waxay ku odhanaysaa riyihii ugu horeeyay ee fooq fuulaa waxa ay joogeen ba gobolka Maroodi Jeex ta gobolka Banaadir ja gobolka Faafan xa gobolka Nugaal waxay joogeen gobolka Banaadir ta gobolka Banaadir riyihii ugu horeeyay ee fooq fuulaa waxay joogeen gobolka Banaadir jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay Maroodi Jeex sacabka garaac daawadayaal intaa waxaa kusoo dhamaaday barnaamijkeennii Haki waad ka daawanayseen barteena youtube-ka ee Haki Sports Channel barnaamijka weydiintii hore waxay ahayd qabta waxaa isticmaalaa ba kooxaha isleynaya ta tuugta gacanta fudud ja kuwa mobilada qaada xa midnaba jawaabta sax waxay ku ahayd ba oo kooxaha isleynaya waxaa ka soo jawaabay Xamse oo jooga magaalada Diridhaba waanu ku mahadsanyahay ka qaybgalkiisa su-aasha maanta waxay noqonaysaa qayb baa kulaxa waxa looga jeedaa qayb ayaa kulaxa waxa looga jeedaa ba fariid baa tahay ta nacas baa tahay ja dabka ka dhacsan xa midnaba qayb baa kulaxa waxa looga jeedaa ba fariid baa tahay ta nacas baa tahay ja dabka ka dhacsan xa midnaba tan iyo kulanti dambe Ramadaan Kariim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh